halkan aanu maanta ku sugannahay waa magaalada madaxda gobolka Awdal ee Boorama sidii taxana ahayd mar walba aanu bal qof gobol kasta u booqano aanu ugu dhiirigelin jirnay sportska iyagoo aan helin sports ku dhiirigelin xagga media ee gobolada qaar ma laha sportska media oo gooniya taariikhda markii labaad ee aanu Ayuubkiin isugu nimaadno barnaamij waqtiga Ayuuba weyn kala fogeyno muuqaalkana gooni baa lagaga soo duubay ana studio-ga ka soo galay ilaahay baa nagu simay maanta inaynu magaalada ku kulanno kulay dhiirigeliya tahay daayir badan baad soo dhiirigelisay waxaan aaminsanahay qof ka qiimo badan oo aan anigu shakhsiyan dadka kale kulay iga aragti duwan yihiin oo sportska halkan kaga qiimo badan inaan u jirin lijan weeye kubadda cagta taariikhduna ay xusi doonto gobolkani Ayuub bal taariikhdii kubadda cagta halkii aad ka soo bilowday dhiirigelintan iyo bal xaafadii inaad bal dib ugu celiso maanta xasuustaada dad badan oo aad maanta gacanta ku haysid بسم الله الرحمن الرحيم سكرية صاحب أدل ما صنتهاي كل سكرية مركز سوكا وريسي وريسي توصل سكور فريسي نويا وقتها بدون يسوي حريري وحن كوضة هذا الشيء ميديا كل شيء على سكان أدن جميع علنية وشخصين بدون نقول يرجع سبورتك سكرية ولا السؤال شو سؤال في عن كل وريسي جوه روحوا على بكون يحن مرة سجارات طبعا كده كيس سيدي بان إلا هذا ولي هو شو قصي كنا مركا waxaan ku horeysiinaa tan naadiga TCL baan doonay wax yarna ka hadlo marka tan naadigan ku horeysiin Sikariyo walaal naadigan waxaan aasaasnay 2005 oo waqti hore dadku way la yaabaan marka la 2005 laga joogo 15 sano ha ilaa maantana koox mibaabi sidii ugu jirta dawladda hoose dad jiilba ay isbedelayaan ciyaartooy markii lagu aasaasay joogay ilaa ma kan jooga jira wali hadda oo kooxda sii jooga oo taagan Ayuub inta baad tababaraha inta baana tababaraha hal sano ka maqnaa halka sanana hawlo safar oo Masar ku maqnaa 2013 ka maqnaa inta kale ana garab joogay ma ka helaan adigu wax dhiirigelina mushahar dawladda hoose oo kale bal iyadana inaad taa ka warbixisay wallahi mi wali wax mishaara wali aan oran kar hal qof xitaa qaati ma jiro anigoo macalin ahaan teamkaana waxaan ku faanay kaliya hantiin ku faanay waxaan kubadda waqtiga hangeliyay anigu waligii mishaar ku qaaday waana waxaan ka murugoodo ma waxaan ku farxo weeyaan maxay yeelay taabkaan galiya oo kubadda cagta waxaan ugu talagelina marka hore inaan lacag ku helo wixii aniga qarashaan soo garan ku bixiyo anigu naadigayga aniga maal galiyaha safarada kale sidabaad manage gareysaan markay kooxdu baxayso maadaama meel ku tirsantaan jirin safarkiisa kaliya soo hargeysa isku ugu dambeysay waxa dhiin may hotelka anaga kareysanay cuntada anaga wadanay baskii go'an bagan ka anaga wadanay ciyaartooyada oo ku adagtay wax la weydiiyo qofka ciyaartooy Sikariyo wixii baana madax saartay maadaama meel ganacsi baan leeyahay sportka dharka lagu iibiyo lacag isku geyn $300 ku baxay safarka $300 $250 kamid ah aniga jeebkay ka soo bixiyay $100 waxa nagu caawiso kale waxa jira company-ga miicaad company la yiraahdo ayaana garab taagan oo mar aliyo markaan dhinacan u cirsan wixii aan keenay waxba gaar weeydi company-gaas miicaad u tagnaa marka wixii naga dhiman ma sheegno anagu wax weydiinin haddana wixii naga dhiman safarkaas aanu sheegnaa marka iyagana nagu madcelinaa insha Allah hadii Ilaahay dhaado marka kooxda marxaladaas soo martay ciyaartooyda gobolka ugu badan oo Cabdi Carro kamid yahay liijanka gobolkaana waa rag kooxda soo maray weeyaan dawladda soo maray sax marka waxaan oran karaa maanta ciyaartooyda gobolka soo baxa 90% inay ka soo baxeen kooxda dawladda hoose Boorama waan ku faanay kulli sharaf ay noo tahay inay soo maraan ciyaartooyda gobolka ugu muhiimsan ciyaartooy badan baad xustay oo Cabdi Carro ay kamid ahaayeen oo ragda gobolka lagu xasuusto waqtigii gobolka ugu fiicnaa 2016 bay ahayd waqtigii ay qaadeen koobka oo taariikhda markii ugu horeysay intii aad ku jirtay muddada 15 sano maanta 16 sano la oran karo aad soo dhiirigelisay sportska adan wax faa'iido ku qabin bal shakhsiyaadka bad ka xusi kartaa oo soo maray naadiga wallahi taariikhda weyn ee facaweyn waxa soo maray san soo sheegay Cabdi Carro ashkuuri tawakkal Cabdi Cali baashi Saad Nuur aadan oo ah macalinka hadda asluubta Maxamed Teediyo hadda Masar ku sugan qorbaha ciyaartooyda xulka ugu fiicnaaya abaadir baa soo maray waxa soo maray ciyaartooyda dirba inka la yiraahdo soo maray weerarka baxdoon baa soo maray Cabdiqani baajiya soo maray ciyaartooydana oran karo gobolka ugu wanaagsanaa dhan way soo mareen kooxda wixii 16 hadda eegtana jiilkii ciyaarayay oo dhan waxay badnaan jiilkii dawladda hoose badnaan dhamaan wixii ciyaarayay isla hadda markii 2020 koobka goboladana ka maqnaynay warga wanaagsan oo ku jireen oo ay ka ciyaarayeen marka way badiyeen wallahi intaan ka tagin waan ka raali gelin ku badiyeen xirfadan mihnadan aad gacanta ku hayso wadagto cidi kuma caawiso kuma garab taagna balse laakiin shakhsi mar walba dhalinyarada isu haya gacanta ku haya safaradooda iyo mar walba dhiirigelintooda Ayuub ilaa heer intee lag baad leedahay inaad xirfadan aad ku sii jiri kartid Sikariyo wallahi waa su'aal fiican
كلي قفك هذونا وحيابك كلا بلودي حكوا شيء سوون له هي قصب لان يوتيوب سلاح شريه أنا مركب ورس كريو هم الدوافع يقول شيء مركب كل شيء مصر تجي واحد دونا أنا نضل كتون ميراها صايرو تايرو كان تجو يا أمريكية لكن مركب دنباء إن مصر سنة شوي فكر وحنا أمين أنا قبل كي يضل كي بهي هنون شوجو لأن يتنا هنجرب تينادو مركان صور لعبتي يوم مركي هورين إن تجي مركان صور لعبتي كبدان أنت صور صار عيار تويدو مركي هورين تجي وأنت صور صار مركان صور لعبتي لابد يكون يشان تمن إلا وقت حاضر كانوا كسور اللي يمكن عاد توصلنا يمكن كبديه أو شيء بقول كذا بيا يمكن أد قصة بتكوحدي هذا كوحدة إذا يمكن دورة هاسي واحد مترين قبل يمكن سومال لأنت واحد مترين سديد قبل كم يدور العيارية أو إن بوه اللي عيار توي يجري صول عيار توي يجري بربر عيار توي يجري هرجيس عيار توي يجري قبل ودن بور مثل يجري أو إلا واحد جاري صدق من عيار توي بس سديد قبل كل عياري مركا الحمد لله هنتذكر كل يكون واحد ويانا نضد بيرنا نضد برنا إن maxaa kugu la yaab badnaa maadaama intii aad muhiimadan ku jirtay aad kala kulanto xirfadan wallahi horta waxa kaliya igu la yaabka badan wax weyn sikiriyo dadka waaweyn oo kale sportiga aad ma fahansano waxyaabii igu la yaabka badnaa waxay markan silal raacay silal waxa jira isku duwaa magacaabo tababar ku-xigeenka isku duwaan soo magacaabo aniga macallinkii xulkii baan soo dhajinay isku duwii marka buuq ba ku furmay oo qolooyin magaalooyinka jooga ku dooday inay macallinkii tababar ku-xigeenkii wixii la siiyo aad markaa hawsha dheeraatay isku duwii أمر وحوق قاتلوا معلنك بدل كان واحد بحد السماير كدي واحد كات كسر معلنك حين كين لصيه ما دام أنا قهري بورما واحد معلنك حين كهري بورما ما دام قبل كيسيل أودل وين تبرك حين كين لصيه قفر سيل أودش كدي بس كدوي مركب بوق بدو كفر مي وحنا أنا كبحي باس كي تبرك حين ك وحنا لك يعني قف كلا تبرك حين نقطة مركب لا يابك يقول بدنا واحد كدوي كينين بقى برا تبرك حين باك يعني تبرك حين قررنا كي تبرك أنا قهان كتيرو تبرك عم تسدي وضع ayaa la igu dalkeenay ha oo media laga hadlo liita barkuxin kala magacaabo kadib aniga waxa igu adkaatay garoonkii ka baxo waa ciyaartooyada ma ka dareeraya aan si markaa wada keenay waxaan ku qasbanaaday inaan joogo oo ciyaartooydu joogo ha habeenimada biimad ciyaartooydii dhalmaan waxay anagu si iska casiliina mar hadda tabarkuxin kala keen waxaan ku qanciyay inaan raaco waayo waxaan kadib aan u raacay tabarnimo ku xigeenay man taliyaha markii uu raacay wallahi ana been sheegin ha isku hinto waxaan aaminsanaa hadhow la yoranayo markuu ka tagay uu ka qaxaystay ciyaartooydiin markaas dadku ku dhex joogay laakiin waxyaabo la yaabkooda waxay ahayd in ciyaari dadka weyn aaminsanayno qof aan hawshiisii lahayno tabar sab ka xigeenoo kala inuu magacaabo tabarka inta soo kaxaysto qof isagoo garanayo gacan soo qabto garoonka keen marka waxyaabo la yaabka ugu badan waxa weeyaan dadkan sportiga garanay haddana soo dhex galaya waxay u fahmayaan in wixii هاي تايسدي كرسي الدولة كلا أو حلو جهلا يوكل أنا قلت كل واحد كم هلين لكن فايدو واحد نورك قبل كسر الوقت كاس يعني عيار تفيدو جونا كسر الله صحولي أنا ميل جالسين كران لكن تيميد عنا ما كنا بس قبسي جوحك يعني أنا كوهرن جروب إن محك فرحة جلية هذيك أنتي أتكوتشر تيمي هنا ده لحية تمام كسنة سبورتسكا والله واحد جوني فرحة جلية وحوين مركان على كل عيارتين صوص عاري أو ميل سرقاري waxay ugu badan ugu faano kuwaas imika horyaalkii Soomaaliya 2020 saddex ciyaartooy ku jiray baa soo qaaday oo Premier League Soomaaliya soo qaaday beesho kale waa ciyaartooyga wuxuu soo qaaday qofkii Itoobiya dowlad deegaanka gobolada markaan arko ciyaartooy sameeyay title cusub ayagu farxad gelin aad ugu farxayo soo saar sax nimcaan helaaco kale fanaankaas oo kale waa ciyaartooydii kooxda ahaa kamid ahaa ilaa maanta uu jecel ku ciisi groupka waxda ku jira oo xusaam meel walba ka hadlayo marka waxa ay farxad qofkan soo saaray inuu magaciisa shimeel gaar insha Allah xulki national team bay hadal hayaan xiriirku صح sidaad sheegtay wali horyaalka mu bilaamin boorama sidabaad aragtaa maadaama aad kamid tahay rugcadaayada sportska gobolka wallahi horta waan aad baan soo dhaweynaa national team qaranka markii ugu horeysay loo sameeyo waxyaabo ugu muhiimsan ee ishu ay qabanayso in sporti ahaan saad si kariyo ogtahay qofka ciyaartooyda wuxuu ku fikiraa inuu meesha ugu sareyso gobollo ka gaaro laakiin national team hadduu yimaado qofka wuxuu ku fikiraa inuu maaliyadda dalkiisa xidho waan soo dhaweynaa cid walba oo la magacaabo tababare iyo cid walba oo nidaam waan soo dhaweynaynaa kaliyan waxaan codsanaynaa in gobolladana horyaalo qurux badan laga bilaabo si ciyaartooyda fiicnaayo gobollada ka ciyaarayna ishu wax u qabato caasimadii iyo iyaguna dee maanta helay wax wanaagsan oo ku faraxsanahayna in saasoo kale ay u helaan gobolladuna dad badan baa muuqdo markaan hadlayno badiga media inaan caasimadda ahaan leenahay iyadoo tartan loo qabtaa yani caasimaddu in badan bay sugaysa waana caasimadii muraayadda dalka wax badan bay ku fikirteen horyaal loo qabto maanta inay heshona wax gobollada dadka dhan farxad geliyo weey annaguna saasoo kale maadaama dalkan amni yahay in laga helo horyaalo joogtaa un baan codsanayna caasimaddu wax walba heshona dee waa hormuudkan ku faraxsan oo soo dhaweynayna sax guud ahaan talo iyo tusaale maxaad siinaysaa bahda sportska maanta halkan sida tooska kaaga daawanaysa wallahi waxaan siinayaa kulli sportigu
qabiil iyo jinsiyad waxa male cidna male in dhalinyarta isboortiga iyo cid walba taageerta isku duubnaato ka yar iyo ilaa ka weyn isku xidhnaado oo qof walba oo isboortiga ku jirana si niyada loo soo dhaweeyo insha Allah hadii la yiraahdo isboortiga aan iska istaagka buu baahan yahay ciyaartooy naga yar hadda soo baxay iyo macallimiinta naga yarna aan ku dhiirigelino inay meel fiican gaaraan insha Allah intayna ku kulmayno barnaamijkan la mid ah ayuub oo aan ku soo booqanay maanta magaalada Boorama oo jooga aad arkaysaan iyo sidoo kale Cabdi Carrawlow oo isaguna magaalada nagu soo dhaweeyay intaynu midkan ku xiga ku kulmayno waxaan idinka tegaynaa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuh